madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii shalay ahayd safar gaaban ku gaaray deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay sii dardargeliyaan dagaalka ka dhanka kooxda duurgaleenka ee gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee ugus waxaana madaxweynuhu uu ballan qaaday inuu saraakiishaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dawladda federaalka Soomaaliya la garab taagan tahay gaadiid military oo dhameystiran madaxweynaha Jamhuuriyadda oo markii saddexaad uu tahay dagaalka u qaatay kooxda gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee ugus ayaa ballan qaaday in sanadkan inta ka dhiman guud ahaanba ururkana laga cirib tiri doono geyiga Soomaaliyeed waxaana madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed uu ka dalbaday in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay garab istaagaan sidii looga cirib tiri lahaa kooxda gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee ugus